بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed dhamaantood waxaan halkan maanta kala hadlayaa ONLF iyo taageerayaasheeda hadaa xasuusnaataan waxaan idin iri 24 bishan waxa loo dhisayaa Itoobiya dawlad ku meel gaar ah horena waa idin kugu sheegay waxaan idin iri Cabdi Ilay iyo Tigray way mashquulinayaan ONLF hadaa xasuusnaataan 91 markii ay Tigray ahmaarada meesha ka baxayeen مجلس حال مريم وحالي القصي مسؤول أوجادين رازجس يسوق جوجو أيا سوق لأن من كان أو اسمه ملك أوجادين يلقوا مجعابي واتي أو أنا في بعض أنكسو شيء هذا نكمل شوكينا مركز تو فرصة أنتهي وان المشغولية شركة سكحرة وديار جروبا عيد مدينة يدت كينا مركان عبد إلي وسكعر يا أو فولي أو سكسي قحيا ليوبولس كانوا حدا عيسى إني السوديبان ciidamadiini awood saara dagaalkii sida dalka u qabsan lahaydaan shirkana kansala ma aragtay yaanan noqonin fursad inaga faa'iideysto 24 Itoobiya dawlad baa loo dhisayaa hore baan idin kugu sheegay bishan mis baan wax lagu qaybsanaa in idin qaybta gelin ayaan inagu mashquulinayaa shirkan Cabdi Ilay iyo waxan maantana ra'iisul wasaarihi waa iscazlay haduu iscazlinay Itoobiya rijama la iyaga saas rib inay dhisana ma dhismaysa anisaan aaminsanahay sababtoo ah mudaharaadyada ila qaban qaabiyaan ognahay oromii ahmaaran ilaa Tigray meesha ay ka tagta ma baqan cayaanba marka waxa idin leeyahay Itoobiya way burburtay shirka iska soo xira iska soo afjara kansalana oo aan lafnaha u diyaar garoodo dhulka inay hanato oo ay ciidamadeeda meesha geyso liyu boortis soo dhiibaan ninkan yaani nagu mashquulin waa mashquul waa isku bedelkii hore aan idin kugu sheegay in 91kii ku dhacdo qaleento xilligan Cabdi Ilay wax laga la fariisanayo ma jiraan talada qaata oo aan laf horena waa idin kugu sheegay waa wiilkii mucjisada dawladdiina waa burburtay xayl maryan ninkii la dhijiray waa iscazilay haduu iscazileyna waa kii international community kaliya ay ku qalsoonaayeen waxa la rabaa in la keeno diganga Dr. Niganga ninkii la leeyahay san filayo oramada hadda la sii daayay xabsiga la dhahaa dawlad ku meel gaar ah oo 2 sano aan hore idin kugu sheegay taana ma shaqeyn doonto dadka shacabka arsabay mudaharaad baa la balansaday Itoobiya waa say u burburtay oo tagtay meeshaas marka ONLF u diyaar garowdo xorriyadeeda shirkaana ha ka baxdo yeeso noqon wax lagu mashquuliyo Cabdi Ilayna rajay u sameeynin khayr baan idin rajaynaya ka faa'iideysta waa wiilka mucjisada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh idin ku dhicin 90kii oo kaleento sidii markii minkista xalamadeen burburay ogaadeen raasgas la sii leeyay intaad ku mashquulsaneedeen ma aragtay la danaysto xoog la yeeshay maanta waxaan codsanayaa ONLF inay awoodeeda isticmaasho ciidankeeda gasho kadibna ilaa soo xirato inta Itoobiya dawlad kumeedaalka federaalka lagu mashquulsan yahay loo soo dhisay leeyahay bisha 3aad dhamaadkeeda ilaa bisha 4aad bilowgeeda xuduudka soo xirato taasaan ilaa marka ormaarigley waa itraafkiina waa banaanka khayr baan idin rajaynaa guul iyo gobonimo